السلام عليكم كلنتي وعن إدراهان تيمبا ميلور بواد شوكتان كسور دوادا channel كرجدي فنكا channel كرجدي فنكا مر وليبا waxaanu idinku soo gudbin doonaa arrimaha fanka fanaaniinta abwaanada iyo sidoo kale majaajilaystayaasha hormuudka u ah qaybtana ka ah soo nooleynta rajadii fanka Soomaaliyeed sidoo kale waxaad nagala socon doontaan barta page-ka Facebook aan ku leenahay Harry ENT halkaas oo aan idinku soo bandhigi doono muuqaalada iyagoo linkiga wata oo aad si toos ah uga daawan kartaan muuqaalka oo dhameystiran barteena YouTube maanta waxaanu idin soo bandhigaynaa waa kuma Cabdiqani isku filan isaga iyo Ekraan Shamaaq maxiriir baa ka dhaxeeya arrimaha Cabdiqani isku filan oo dhameystiran ayaanu maanta halkan idinku soo gudbinaynaa hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelka fadlan ugu soo bir taabo calaamada subscribe-ta gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto saaxiibada ku xiran channelka rajadii fanka wadnahayga la jeexo oo qayb laga jaro jirkayga jabkiisoo hadha xabiibi jacaylkaagu magaciisa oo dhameystiran waa Cabdiqani Maxamed Cabdulaahi waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1995 Cabdiqani waxa uu ka mid yahay majaajilaystayaasha Soomaaliyeed sidoo kale waa fanaan waxa uu sameeyaa sidoo kale maasooyin jacbura Cabdiqani waa dadka inta badan madadaaliya bulshada Soomaaliyeed ay ku xiran yihiin kumanaan kun oo Soomaali ah Cabdiqani Maxamed Cabdulaahi ayaa sanadkii 2014 waxa uu ku soo baxay barnaamij Got Talent ah oo lagu qaban jiray magaalada Hargeysa kaasi oo uu qaban jiray TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani oo xilligaasi aan si fiican loo aqoon ayaa muddooyinkii dambe aad u soo shaacbaxay iyadoo maalinta ka dambaysa ay ku sii xirmayeen boqolaal iyo kumanaan Soomaali ah kuwaasi oo taageero buuxa u haya aad noola socda majaajiladiisa iyo sida uu dadka uga qoslinayo Cabdiqani ayaa waxa uu leeyahay hibooyin kale oo u gaar ah sida inuu sameeyo gabayada iyo sidoo kale in uu asna alifo jacburka qaybihiisa kala duwan Cabdiqani isku filan filmaanta uu sameeyay kuwa ugu dambeeyay waxa kamid ahaa musalsalka la magac baxay Wacdi Iwaano kaasi oo ay ku xirnaayeen taageero badan taageeradaasi oo inta badan ku hadalhayay baraha bulshada in xiriir uu ka dhaxeeyo isku filan iyo sidoo kale Ekraan Shamaaq arrinkaasi ayaa waxa ka hadlay Ekraan Shamaaq sidoo kalena taageerahoodu inta badan wax ay falanqeynayeen in xiriirkoodu uu yahay mid hoosaada oo inta badan ay isku baraarugsanayn bulshada badan ee taageerada u ah labadan shaqsi ha ahaatee iyaga waxay sheegeen in waxba kama jiraan tahay in labadoodu uu xiriir ka dhaxeeyo fikraatayda بينك هي إقران صورة وين ونحسن سيتي ما شاء الله والله ما شاء الله الحمد لله بالكورة ما فينك عبدالغنى كورية رنتي هرتو فينك وعد يوانو إلهي باب ما هتسكله مر لبعض واحد ما هتسكله دمان هلو ذا النضا يونيفرسال تي في سيو أهان أجاسمها تي في أهنا دايركتورka filimka ahna aftigay ahna saaxiibka ahna adigu aad gowdhe runtii filimkan markaan 20 xalqadood marinay maaxow ayaa waxa soo gaadhay waqti uu baxay daairtorka amba agaasime maxaad safar la dharatay safarkii waxaan ku nidhi maadaama filimkii laga helay waa inaad safarka baatisaa oo fikradahay aynu filimka soo dhameynaa alxamdulillah adigu filimkii adigu waan dhameynay ما شاء الله ويه سوينا سمونا كده ماضي waxaan rajeenaa inaan sii wadno insha Allah taala waa hadii aan helo dhiirigelin dhiirigelin ma laha badnaa heesun bay ku khafifeen muujinti kana madaxweynaha heesay kana kan wax siiya kaas ma fanaankaas marka jilista iyo waxa filmaanta iyo waxa wacyigelinta wadankeena ma xiiseeyo iyo dawladda toona inkastoo wacdi waana uu suuqa aad u haysto kana habar iyo dacadtoona ma baahna igan والله هرت دواسده وعبدقني شيغي runtii filinkan wuxuu noqday filimkii intii rabadaan ay socotay ay social media noqoto hadii YouTube noqoto inta ba haystay sababtaana waxa lahaa directorka aanay filinka agaasimaha TV-ga Faisal Maxamed Caabi oo aad ugu mahad celinaa sida wanaagsan uu soo agaasimay runtii haduu isagu waxa sameyn maanta anigu waxaan oo dhan maanan
ha aanan la imaneen waxa kaloo iyagana aan mahad celinaa dhammaan daawadayaasheeda taageerayaasheeda sida fiican ay noogu soo hambaleynayeen ay noo dhiirigelinayeen ay ugu faraxsanaayeen ay u daawanayeen xitaa ilaa iyaga daawanayay iyaga nu soo saarnay Soomaa wixii iyaga nu soo saarnay iyagu waajibkooda ahaa inay daawadaan way soo gudbiyeen marka ayaguna waxaan leenahay aad bay mahadsan waxaan rajaynaynaa insha Allah in sanadka dambe hadii aan noolaana aan barta ka sii wadi doono waxaan ka ilaaway laba cameraman اللهم استعان وصاو بيركو ودغيا قال ودنبا فدي يستاغ دوليس فكودي شكدا كاميرمان حمزه iyo cameraman amin السلام عليكم aad buu mahadsan waxay hayeen tiirka dhan ee filimka ku taagnaa muuqaalka dhan iyaga soo duubeeyay sidoo kale adigan meesha ka maqnayno maaxa oo de macaaneyntii dhanaanayntii inta walaha adiguna aad baad mahadsan waxaan kala bartan aan doonayaa inaan ugu hambaliyeeyo جروب انتي كله حبيرته هباق وكمتلسي صدقها فيلمكا اباي يسف عقاق وصاحبك مره يسق نافتغيا دمان iyo intii kala shacab yar aan ku jiray oo ka maqnayn iyo dhamaan intii kala ku jirtay filimka meel kasta ay joogaan aad uga mahad celiniya si wanaagsan oo shaqeynay ma sha Allah intaan filimka daawanayo filimka kaliya ma daawado waxaan kala daawadaa akhrista commentiyada dadka badankoodu ay leeyihiin labadana isku soo baxayaan anagu ya kawaran ya way dhici kartaa waxa jira dad ay dadku isla jeclaadaan oo laakiin iyagu de aan wax xiriir aan ka dhaxayno hoosaad anagu dad walaalun baan nahay wax kaliya mihnada kaliya isku ka keentay waxa ahayd inaan de acting kaasun marka dadku waxay de isla ka jeclaadaan acting kaygu ma jeedaan kulay haasan wuxuu jilayno bay isla ka jeclaadaan wayna mahadsan adigu halkiisa ku qortay jacaylkaagi hirgal Cabdiqani isku filan iyo sidoo kale Ekraan Shamaakh ayaa waxay yihiin dad isku dheer muddo aad u fogna saaxiibo soo ahaa iyagoo wada keenay aflaan ay inta badan Soomaali badan ay ku xiran yihiin aadna ay u jecel yihiin sheekadan xiisaha leh ee ah in labada qof oo xiriir ka dhaxeeyo ayaa waxa ay ka soo bilaabatay ama ay ka dhalatay labadii musalsal ee u dambeysay kuwaasi oo dadka taageerada u ah labadan shaqsi ay barta fariinta ama commentiga ay ku reebayeen in labada qof ay yihiin laba qof oo xiriir ka dhaxeeyo ay is jecel yihiin ha ahaatee marka labada qof ay istaalanti fahmaan Soomaalidan ayaa badi waxay ku xataan dadkaas inay yihiin dad xiriir ka dhaxeeyo isuna soo dhawaanaya laakiin labada qof waa laba shaqsi oo aad saaxiib u ah talantigooduna uu isfahmay aadna isku taageero waan laba shaqsi oo taageero badan ku leh bulshada dhexdeeda